قصدا waa maxay in badan ma inaad iga maqasheen baa suurtagal ku celcelinteeduse kolba faa'iido un bay leedahay kullu maqaamin lahu maqaal kelimadu iyo qisadu waxay daba haysataa nicmadu alle ku siina wax ka bixiso hadaad nicmada wax ka bixin weydana in laga qaadi karo qisadu waa inta waxaan qisada ay ku bilaabatay nin baa jiri jiray Masri ah ilaahay baa xoolo siiyay ninku markuu xoolo leeyahay gabdhaha uu doortaa wadogtiin Soomaha wadaadada iyo nimanka xoolaha leeyo ogaasyada iyo kala baxaan waxbay kala baxaan oo siba loogu xurmeeyaa marka gabadhu shawreerihi ku jirtay marka aaga degana masaaridii ayuu qabaa ninku ilaahay walaad Masri subhanahu wa ta'ala wad gooraysan way naga cunto badan yihiin carabtu markay qadaynayaan maxaa la yiraahdaa miiska hal nin keligii loo buuxinaya oo anwaac min at-ta'am Soomaa miskiin baa soo garaacay maalmaha kamida markaasuu yiri bal fiiri cid albaab soo garaacayso sawa miskiin magan Allah soo salaamay kadibna way gabadhu ku soo noqotay waxay ku tiri miskiin baa albaabka taagan waxaad ku dhahdaa bil Allah ku sahlo waa Soomaaligan waxba kuma hayno ninka soo baahan oo gaajaysan ayuu dhaqaaqay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray asaga wax bixiye asaga gacmihiisa wax walba ku jiraan inuu ninkii xoolihiisa si tartiib uga dhamaadaan gabadha xoolihiina way dhamaadeen adeer furway maxkamadda la soo tagay gabadhii uu furay ninkii miskiinka ahaa khazaa'inta iyo mafaatiixda Allah way badan subhanahu wa ta'ala ninkii ilaahay muxuu furay ilaahay arsaaqadii buu furay ninka oo maanta isla wallahi waa inaad guursato kugu haboonaan lahayd iyo gabadhii oo isla maanta xoogaa baad malaha garoobaysay haddaba kugu fiicnaan lahayd inaad guursato ayaa iska soo horbaxay waa la isxiixatay waa la shokaasaday waa la isfahmay waa la guri galay ayagoo qadaynaya baa miskiin albaabka soo garaacay maxaad u maraysaa miskiinka ayuu noqon doonaa ninkii markuu soo garaacay buu ninkii wuxuu ku yiri falfiiri cidda albaabka soo garaacaysa sawaa ninkeedii hore way soo laabatay oo waxay ku tiri miskiin baa albaabka taagan wuxuu yiri wallahi inaan cunto afka saaraynin ilaa ninka waxaad u qaadi karto inaad u qaado soo qaad weelal kala duwan oo anwaacdan tacaamka ku aruuri oo ninka sidii bay ku siisay markay soo noqotay bay gabadhii ooyday waxay looyisay wad garanaysaa Soomaa wuxuu weydiiyay maxaad looyisay waxay ku tiri ma garanayso ninkii tuugsanaya albaabka taagnaa markaasuu yiri maya waxay tiri innahu zawji al-awwal ninka waa ninkaygii hore kadib da asagu garanaya inay gabadhii tahay wuxuu yiri hal taarifuni ana oo hadaba anima ay garanaysaa waxay ku tiri maya wa ana as-sa'il al-awwal ana ninka hore tuugsanayay baan ahay qisada waxaan doonayaa inay qayb kamida qalbigeena ay degto oo munaasabadan caawa aan u fadhina waxa weeye hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ni'amka aragteen uu nasiiyay inaan wax ka bixino hadii kale Ilaahay waa naga qaadaya oo midka damaanta wax loo aruurinayo waxba ma wayso moogidina miyuu waayasagu Soomaalidu waxay jireen ma ogtay curyaankaba cagal looma waayine kuwa caynka looga dhigay kuwa carare ee ladan inay ku cibra qaataan ama ku cilmi qaataan hadaba ninka curyaanka iyo midka xaqale iyo midka cagahale iyo midka mas'uul u galaan lahayn iyo midka roob la'aanta iyo midka xoolo ka dhamaadeen Allah oo ma waayay laakiin adiga la doonayaa lagu imtixaamaya bal inaad xoolahaaga wax ka bixisiin لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال